howlgalkan qorsheysan ciidamada kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ujeedkiisu ahaa baacsiga araadiga maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab. howlgalka ayaa waxa ciidamada kumaandooska xoogga dalka ee Danab ay ka fuliyeen deegaanka lagu magacaabo Urunji oo hoostaga deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo maxkamad beenaad ay u ahayd maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab isla markaana shacabka Soomaaliyeed ee masaakiinta xoolahooda ay ku qaadan jireen. howlgalka ayaa waxaa fuliyay ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumaandooska xoogga dalka ee Danab. intii howlgalka ay ku guda jireen ciidamada waxay ku dileen laba horjooge oo Al-Shabaab u qaabilsanaa waxa loo yaqaano sakawaadka ama xoolaha baadda ah ay ka qaadaan shacabka Soomaaliyeed. sidoo kale howlgalkaasi waxaa lagu dilay horjoogihii u qaabilsanaa maxkamadda deegaankaasi Urunji oo ahaa horjooge markaasi baneystay dhaca iyo boobka hantida ummadda Soomaaliyeed. labada horjooge ee ciidamada kumaandooska xoogga dalka ee Danab howlgalka ay ku dileen ayaa waxaa weelinayay 3 maleeshiyaad oo la socday kuwa oo isku dayay inay dagaalamaan, hase yeeshee ciidamada kumaandooska xoogga dalka ayaa goobtii ku toogtay. horjoogayaasha ciidamadu ay dileen ayaa waxaa lagu